dhammaantiin cid allaale cid fiidiyowgan daawata aad baa u salaamayaa runtii waxaan iskugu nimid barnaamijkan oo aan ku taageerinay ra'iisul wasaaraha waxqabadkiisii sanad kadib xasan cali khayre runtii barnaamijkan oo caawa la rabay inay boqolaal qof dad ka badan iskugu yimaadaan ayagoo dareenkooda muujinaya anigoo shakhsiyan kharashkayga ula baxayo oo cidna aysan igu taageereen howlkan intaa leeg inaan kareeyo bulshadii reer Gaalkacyood oo ra'iisul wasaare Khayre waxqabadkiisa ku taageersanay inay iskugu yimaadaan kuna bogaadiyaan sida darteed goor ay ahayd 12 ama 6 maqribnimo kadib baa howlku in la iskugu yimaado ay ahayd marka kowdii markay ahayd ama 7dii baa ciidamo yimaadeen amar beena waxay ku baxsheen inaan wax xaflada meeshan ka qabsoomeyn sidaas waxay kaloo noo sheegeen amarkan inuu madaxtooyada dawladda Puntland uu si toos ugu yimid kadib markaanu niri maxaa diiday inaan ra'iisul wasaaraha iyaga taageerno oo aanu bogaadino oo aanu waxqabadkii iyo wax uu soo bandhigay iyo xukuumaddiisu ballaarnayd horumarka iyo wadaniyadda lahayd sida ay u shaqeysay oo dhaqaaqday inaan ku bogaadino waxay jawaab nooga dhigeen xataa ma taageeri ka dhaan runtii waa wax laga xumaado dawladda waxaan ka sugaynay inay nagu dhiirigeliso shalay markaan madaxweyne farmaajo soo dhaweynayno oo darbiyada rinjiyeynay aad bay noogu dhiirigelinayeen oo dhalinyaradu way ka qayb qaadanayeen ma garan kara maanta markii Khayre aanu dumacnay inaan taageerno maadaama sanad kadib ay ku beegan tahay maabenkii la magacaabay waxa ay u diideen ayagana ka jawaabi doona sidoo kale maamulka hoteelka waxay u sheegeen barnaamijka hadii la qabto in si degdeg ah hoteelka laftigiisa iyo dadka barnaamijka joogaba la xirayo sida darteed barnaamijku wuu baaqday ayagana waxaan ka sugaynaa dawladdu inay jawaab cad ka bixiso waxa ay barnaamijkan u joojisay aad baan u mahadsantiin runtii aniga waxaan ka mid ahay ka soo qaybgalayaashii waxa isoo invite gareeyay walaalkay Maxamed Jaamac Kukay oo ka mid ahaa ama ahaaba ninkii hirgeliyay barnaamijkan isagoo ay ka gashay qarash iyo lacag wax maaragtay cid kore oo lacag siineysana aysan jirin oo uu ka hadlayay wadaniyadiisa kuna maaragtay dhiirigelinayay ra'iisul wasaarihiisa iyo dawladdiisa laakiin waxaan aad uga xumahay ra'iisul wasaarihii Soomaaliya in ayadoo la bogaadinayo xaflad loo qabanayo ayadoo ay ku beegan tahay ka sanad guuradii ma garanaysaa xilligii la magacaabay ra'iisul wasaaraha in maaragtay dhalinyaradii bogaadinaysay la xirxiro oo ma garanaysaa ciidan la keeno oo la joojiyo